رمضان قد أهله بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. ليته في كل حين. حافظين ذاكرين قانتين خاشعين مسلمين مؤمنين للإله عابدين. شهرنا صوم وعتق وقنوت فيه صدق، يومنا صبر ورفق بدموع البائسين. بدموع البائسين. إلي الله إلي الله إلي الله إلي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الأخوات، الله تبارك وتعالى أيام هذا السكله إنه نعمي نعم إن تركوب كرين وأيقوه انتهي إنه نقدر يدد مسلمين وأهل الدين والله يقان تبارك وتعالى إن يعبدان كدد عليه. bishii barakaysnayd ee Ramadaan ayaa inoo soo dhow. waxaana waajiba ruuxa muslimka ah ama rag ha ahaado ama dumar ha ahaade kolba shayga uu doonayo inuu qabto intuusan ku tilaabsanin inuu fiqigiisa iyo xukunkiisa iyo qaabku u qaban lahaa ama u samayn lahaa inuu barto. fiqhul xaal bay yidhaahdaan culimmadu. markii soon aada soomi rabto waa inaad barato soonka iyo axkaamtiisa. hadday salaadii timaado salaadda axkaamteedii waa inaad garanayso. haddii xaj iyo cumro timaado waa inaad xajkii iyo cumradii intaadan aadin aada axkaamtoodii barato. haddaad doonayso inaad ganacsato waa inaadan ganacsiga intaadan faraha la gelin aada barato qaabkaad u ganacsan lahayd. maxaa ilaahay kuu xalaaleeyey, muxuuse kaa xarimay. maadaama bishii barakaysana idinku soo dhowdahay in marka aan wax isaga sheegno bishaa barakaysan iyo qaababka kala gedisan aan uga faa'iideysan karno waa runtii muhiim ah. waqtigu waa iska gaaban yahay. waxaana jeclahay inaan axkaamta muhiimka ah lagama wada gaari karo, laakiin inaan kor maro. tafaasiil fara badan waqtigu ma saamaxayo. masaa-isha aan sheegayo adiladeedii inaan soo wada arooriyana waqtigu ma saamaxayo. waxaanse isku dayayaa insha allahu tacaala inta ugu badana waqtiga aan ka faa'iideyn karo masaa-isha inaan kor maro.
fadaaisha faraha badan ee hadda sheekhu soo sheegay sheekh Cabdiraxmaan iyo abaalgudka ilaahay tabaaraka wa tacaala uu diyaariyay dadka sooma soon walba lagama helo laakiin waxa laga helaa abaalgudka iyo fadliga laga helaa soonka sharciyeysan soonka cilmiyeysan soonka u dhaca sidii alla u jideeyay alla rabay tabaaraka wa tacaala rasuulkiisuna ummadda u baray sallallahu alayhi wasallam soonka way soonka laga helayo abaalgudka iyo fadaaisha faraha badan ee uu sheekhu soo sheegay hadduu soonku intaas uusan lahayn oo uusan macnaha wax weeye uusan ahkaamtiisii sidii la rabay u dhicin ruuxu waa ku khasaaraya mana ka helayo wax faa'iido ah sidaas daraadeed baa nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri rubba saa'imin laysa lahu min siyaamihi illa al-ju' wal-'atash waxa badan ruux sooman oon soonkiisa ka helaynin waxaan oon iyo gaajo ka ahayn bimacnaa wuu soomay abaalgudkiisuna wuxuu noqday inuu gaajaysnaa oo oomanaa bas wax kaloo ilaahay agtiisa u yaalla ma jiro maxaa yeelay soonkiisa ayaa wuxuusan u dhicin sidii ilaahay rabay tabaaraka wa tacaala waxyaalaha inaan ogaano waxaa ka mid marka muhiimka ahkaamta muhiimka inaan ogaano u baahan ee laga maarmaanka waxaa ka mid ah bisha ma banaana in maalinka ka horeeya iyo maalinka ka sii horeeya in la soomo ma banaana ilaa ruux ay caado u ahaan jirtay mooyee مثلا bishan shacbaan ay ramadaan ka horeyseen hadda ku jirno soddonkeeda iyo 29keeda ama hadday 29 ku dhamaato 29keeda iyo 28keeda in soon sunna alla soomo waa mamnuuc nabigu wuu reebay sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ramadaan ha ka hormarinina maalin soonkiis ama laba maalmood soonkood dadka qaar baa taxadar iska sii taxadara dhihiyo ramadaankii on dhalanin bay dhowr bari hortiisii soomayaan waa diiday nabigu sallallahu alayhi wasallam taayada in lagu baraarugo allahumma hal ruux baa loo ogol yahay waa ruuxa caado u lahaan jiray inuu soomo oo caadadiisii ay waafaqday labada bari مثلا أحد وحسومي جري خميستي بيكسو هاجاكتي سجالي اللواتن كبيش أما سنين تسومي جري ويكسو هاجاكتي كوا لو أقوليه لأن عادتي سهرة ساء هنجرت روحي أن عادة أولى هين لبدا بريئين الصوم الله ما أقوله وحكى له إذا ممنوع إلا الصوم إذا معناها كله مالك لشكيسينها بشي ما دلتي مسمينا دلنين cid aragtayna ma jirto meel laga sheegayna ma jirto waxa lagu shakisan yahay shacbaan ma dhamaato ma ramadaan baa dhalatay mise ramadaan ma dhalanin shacbaan baa wali socota maalinka shakiga iyadana ma banaana in la soomo nabiga salawaatu rabbi wa salaam alayhi saxaabadiisu waxay ka warinayaan leeyahay ninkii sooma maalinkaasi wuu caasiyay nabi maxamed salawaatu rabbi wa salaam alayhi lagama wado sida dadka qaarkood ay u fahmeen maaha macna khalad ay u fahmeen xadiiska oo dad baa u fahmeen maalin hadii bishii la soo sheegay oo la arkay oo meelaha qaarkood laga arkay laakiin meesha joogta aan laga arkin dadkii meesha joogtayna ay isku khilaafsan yihiin maalin shaki ma aha maalinkaas laana bishii waaba la arkay bacha bishii hadiiba la arkoy meel ka sugnaato yawmu shaki ma aha yawmu shaki waxa la yiraahdaa waa maalin aan bisha wax arkayna jirin in la arkana la filahayo la raadinahay laakiin wax sheega aan la haynin maalinkaas ayuu mushakki la yiraahdaa ayadan lama banaan lama soomi karayo sida xadiiska nabigeena ku sallallahu alayhi wasallam bisha waxay ku sugnaataa saddex arrimood mid kamid oo ahkaamta in la ogaado u baahana bisha arageeda inaad adigu aragto in la arko arag waa mid nabigu sallallahu alayhi wasallam suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi bisha arageeda ku sooma arageedana ku afura isha qabatay waa la arkay waa la soomaya qodobka labaad wax weeye bishii
adigu maanan arkin laakiin dad arkay baa ka markhaati furay oo soo arkay dad arkay baa markhaati furay meesha ama ha kula joogeen ama meel kale ha ka markhaati fureen ayadana waa lagu soomaya oo nabigeenna sallallahu alayhi wasallam waxa uu leeyahay fa in shahida shahidani fasuumu wa aftiru hadday laba ruux markhaati furaan bisha araggeedo yidhaahdaan waan aragnay ku sooma buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka iyadana haddii dad muslimo lagu kalsoon yahay ama iska mastuuro xumaan lagu ogeyn haddii uu yidhaahdo bishii anaa arkay iyadana waa la qaadanaya waa lagu soomayaa laba ruux haddii la helo ka si fiican halka ruuxna waa lagu soomi karaa waxaana ku tusaya taa dambe xadiidka cabdullaahi bni cumar radiyallahu tacaala canhu ardaa wuxuu leeyahay taraa annaasu alhilaal waqtigii nabiga sal lla lay slam dadku bishii baa la raadiyey oo ruux walba wuxuu isku kallifay bal inuu arko markaasaan arkay buu yidhi anigu markaasaa nabiga u sheegay sal lla lay slam waxaan rasuul illah bishii anaa arkay fasaamahu wa amara annaasa bisiyaamihi markaasuu nebigu soomay dadkana wuxuu faray hal la soomo cabdullaahi bni cumar keligii waa hal ruux oo bishii arkay oo markhaati furay buu nebigu qaatay markhaati furkiisa mas'alada oo khilaafiye-ana waa sida saxiixa ah hal ruux oo muslima markhaati furkiisu waa soconaya xadiiskaa nebigaana ku cad salawaatu rabbi wasalaamu calayh taasina waa midda labaadoo waa haddii la markhaati furo oo la caddeeyo oo cid aragtay ay sheegto laguna kalsoon yahay midda saddexaad waa in bisha shacbaan soddonkeeda la dhammaystiro oo iyadana xadiiska nebiga ku cad sal alla alay wasalam haddii laydinka qariyo fa in qumma calaykum bishii shacbaan haddii laydinka qariyo waxaan u jeedaa bishii haddii ramadaan araggeedii haddii laydinka qariyo ood arki weydaan fa akmiluu ciddata shacbaana 30 shacbaan soddonkeeda dhammaystira markaa sidaa daraaddeed baa waxaa laazim ah min baabi maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib waxa weeye shacbaan bilowgeedii in laga warhayo oo waqtigay bilatay yacni waxa weeye xilligay bilatay in la sii og yahay maxaa yeelay xugun baa ku xidhan mar baa waxaa ku xidhmaya xugunka soomidda shacbaan dhammaystirkeeda waa in marka bilowgeedii la og yahay waay laakiin dhibaatooyinka hadda dhaca waxaa ka mid ah shacbaan waa la ihmaaliyaa danba lagama galo gooray dhalatay lagama warhayo ramadaan baa lagu dagaalamaayo lagu murmaa haddii marka bishii la arki waayo shacbaan soddon baa la dhammaystirayaa soddonkeedu markii la dhammaystiro maalinka soddonaad ay baxdana habeenkaa ku xigaayi waa ramadaan qatcan ama ha la arko ama yaan la arkin bishii saddexdaa qaab baa marka bishu ku sugnaataa markii la yidhaahdo xagga aragga iyo markhaati furka bisha laba arrimoodba waa isku mid meeshaad joogto haddii laga arko iyo meel kaloo caalamka ka mida intii laga arkay haddii laguu soo sheego ku soo gaadho cilmigeedii iyo ogaanshaheedu waad ku soomaysaa sida raajixa ah ee culimmaduna u badan yihiin intaa markaan kaga soo baxno bishii siday ku sugnaan lahayd hadday dhalato oy bishii inoo dhalato nabad aan ku gaadhno waxyaabaha muhimka waxaa ka mid yahay axkaamta laga maarmaanka ah habeen kasta oo bisha ramadaan ka mid ah waa inaad niyeysato soonka waxaa yili nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidkii cumar bnu khataab fi saxiixayn waa ka rasuulku yidhi inama alacmaalu biاnniyaat wa inama likulli imri'in maa nawaa camalyaalku waxay ku xidhan yihiin niyooyinka ruux walbana wuxuu niyeysto unbuu leeyahay camal aan niyo lahayni camal jira maaha saas daraaddeed ramadaanka habeen kasta waa inaad niyeysato xadiidkii xafsata binti cumar baa isagana wuxuu ahaa nebigu yuhi sal lla alay wasalam ruuxii aan habeenka intaan waagu baryin aan niyada bariisiininoo habeenkii aan niyoonin soon ma laha buu nebigu yihi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka waa tiir asaasi ah niyaduna macnaheedu waxa weeye waa doonitaanka qalbiga yacni qasdu lqalbi wa iraadatu lqalbi waaye casiimatu lqalbi waaye meesha ay niyadu ka dhacdana waa qalbiga xubinka sameeya niyada waa qalbiga carabku shaqo kuma le siday gacanta iyo lugaha iyo indhaha iyo dhegihii ayna shaqo ugu lahayn xubnahani shaqay kale leeyihin haddii la yidhaahdo qasad iyo niyo haddii la yidhahdo iyo doonitaan qalbiga shaqadiisa waa camal qalbi waa sidaas daraaddeed ciddii tidhi oo culimmada ka mida niyada in afka lagaga dhawaaqaayo waa sunno waa khaldameen sax ma aha leanna niyo afka lagaga dhawaaqaayo ma aha
يعني وحوي نبينا كما سقنا صلوات ربي والسلام عليه سيد الصواب كمرك وحوي قلبك أمبات قشانيسا إناد بري سوميسو صونكي واجبك هذا سحورته والنية سنته هدي أن مدقا بانو هبينكا كميدا قلبك إناد بري سوميسا أيكو صور دعضو نيدو وإنتا وحسيع الاسماء نيدا قلبك أيضا وحوي وشيء مهم وهبين والبين لسكو تحلو شيء إن شاء الله تعالى أيضا هل ما من أيضا أنت واقو برين أيضا وقضب مهمة أساسية وي كدبنا هبينكي مركي أدني يستو واقو كوبريو وإن تسكى إلى لسو وحيالها صونكا دبايا وحيالها صونكا دبايا ولا بقى قيبوت قيبي صونكي بيتشبينيسا وعبادتي يرنبوي كتخلصيسا وحبر مرة بيس قيبنا صونكا ما تشبينيسو لكن أجركي بيدما يسانيسا وwaxa kugu dhacay tacab khasaar waxba ku soo hari maayaan labada qiimood waa in la iska ilaaliyo waxyaalaha soonka jabiya ee soonkaagi oo dhan jabinaya ajiraad ka heshay iska dhaafay waajibnimadiina wali ay ku saarnaanayso waxa kamida cunitaanka iyo cabitaanka ruuxu isagoo oo isxusuusan uu kas u cabo ama u cuno mukhtaar ahoo isagu khiyaarkiisana uu ku sameeyo علمي أوليه أو جرنايو أو أقون أوليه هاي سيدا هدي أو سمايو عند يعبد أو كسمايو صون كيسوا شبيا بالإجماع قرآن كنا واشيء ثم أتم الصيام إلى الليل يعني وحويا قرآن كنا واتمامي وعدي حديث النبي وعد صلى الله عليه وسلم وأنا إجماع وخلاف كمتشر بين العلماء عند يعبتانك هدو هالمان عبو أما هالمان أوجي عنتانك يعبتانك أما لجو قصبه أما أو اسمه تسيو مثلا واجي يوم بريم بو يصير بو بريء واجي يوم بريء بو يصير ما بريء مركزو إسكا سحورتو إسكا عني قرح دي يودعين بو مثلا ويحو يصير وايد دعدي مركزو إسكا عني أنتم مودا إني دعدي تاسي وأقون درها أوجي سوسانكم ما تشبيه واحد لجوا ذا مركو أقون حسوسية هاي دورتو أون لقصبين محوها هاي هذانا أقون تذا أوليه عندي يا عبيد داسي ويتشبيسا وأنا مسألة دتكور أنت بدنا يقرنا يومي وحال من عنيد عبيتانك وعلماء أي شيئان يعني شيء بمعنى الأكل والشرب أو كلا يعني عنيتانك يا عبيتانك بمعنى يسيو كلا ليه عنيد ما عبيتان ما لا عنيد عبيد ويحي أفكار لقى قاتل ليه مرك روحا وحما عنين وحنا ما عبين لكن ويحي عنيد يا عبد لوجا قستشري عنتدي يا عبيتانك ويحي لوجا قستشري بتشيركي سجلي أما يعني وحوي تشيركا meelihiisa kale duleelada kale laga siiyay ama xididada laga siiyay shirki nafaqa la siiyay irbad baa lagu duray irbadahan shirka nafaqeeya glucose la siiyay oo xididada laga siiyay nafaqadan dadku markay xanuunsanayaan ama jiran yihiin ama cuntadoodu yaraato lagu duro hadii lagu duro waa cunitaan iyo cabitaan وبالتالي ويسيد waxaan u jeedaa soonka waa jabinaysa soonkii waa jabaya walow afkaba ha ka qaadanine xididada hadad ka qaadato waa jabaya waxana laga wadaa wixii jirka nafaqeynaya oo cuntada iyo cabitaanka lagaga kaaftoomi karo waa ama irbadahan caadiga ah la isugu duro daawo ahaan oo xanuunsanaysa lagaaga duray oo kale to kuwaasi waxba jirka kuma biirinayaan sidaas daraadeed cunidna maaha cabitaanna maaha macnihii cunid iyo cabidna ma laha waxba kuwaasi yeeli maayaan soonka taasi marka waa qodobka labaado waa wixii cuntada iyo cabitaanka la mid oo jirka dheefinayo waa waxay culimada qaar kood ku daraan dhiiga jirka lagu shubayo kale ayay ku daraan dhiiga jirka lagu shubayo oo mesela inta dhiig lagu shubo hadii jirkaaga lagu shubo nafaqa la siiyay وبالتالي soonku waa jabaya sidaas ay baad ahli cilmi iyadana ay ku darayaan waxa kamid ah waxyaalaha soonka jabiya inuu ruuxu ka sisuma tajiyo laba way hadii mantagu iska yimaado oo ku soo jiiro oo isagu inuu soo baxo maago cilmiisida waa iska iimaanaya soonkaga waxba yeeli maayo laakiin haduu adigu aad kas ku soo saarto ama afkaad gacanta gelisay ama intaad u qasaday waxaad ku yalaalugoto ku yaqyaqsato baad iska keentay ama caloosha intaad ma jiirtay baad iska soo saartay si aad ku soo saartaba hadaa adigu u kas ku keento ficilka uu ku yimaado marka soonkaagu waa jabaya nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ruuxi iska matajiya haqaleeyo ruuxi mantagi ka yimaadana soonkiisa ha wato marka soon yaani mantaga kaska ee la iska keenay isagana waa jabinaya waxa jabinaya sidoo kale to galmada rag iyo dumarka dhex marta
ayaduna waa jabinaysaa iyagoo aqoonteedii leh xusuusan yani wax way garanaya hadday galmadaasi dhacdo iyadana soonku waa jabaya iyadana khilaaf kuma jiro quraankuna waa tilmaamay yani aayadihii sheekhu akhrinay fi suurati al-baqara ayuu Allah ku tilmaamay tabaaraka wa ta'ala yani wax way muxuu ahay rabbi walaha tabaaraka wa ta'ala dumarkiinu labis baydiin idinkuna labis baaduti aayadka halka ka bilaabanaya buu rabbi ku tilmaamay tabaaraka wa ta'ala nabiguna sallallahu alayhi wasallam xadiidkii Abu Hurayra fi sahihayn ayuu ku sheegay galmadu inay soonka jabinayso waana ijmaac oo khilaaf kuma jiro culimadu waa isku waafaqsan waxa kale oo jabiye soonka yani waxyaalaha jabiye kamida dhiiga dumarka ka yimaada caadada iyo dhiiga dhalmada labadaas iyaguna way jabinayaan dhiiga caadada ah wuu jabinaya xilli ay sooman tahay hadduu ku yimaado waa jabinaya haddii habeenkii uu ku dhacana maalinka ma soomi karto ilaa dhiigu ka go'o xataa haddii daqiiqada ugu dambayso qorraxdoon dhicin daqiiqada ugu dambaysa hadduu ku yimaado maalinkaasi ma jiro maalinka waa inay dib ka soo qalayso waay marka dhiiga dhalmada iyo kan caadadu waa isku xugum waxa ka gedisan labadooda dhiiga loo yaqaano dhabar furanka istixaadada la yiraahdo oo isagu joogtada isaga socda oon caadana ahayn dhiig dhalmana ahayn waa dhiig cudur ku yimaado waay waxa kamida dhiigaga noocyadaas oo kale ta iyaguna iyagu waxba yeeli maayaan waa lala soomi waa lala tukan muxuu ahaayay yani waxa way calaaqadii xiriirkii iyadii ninkeeda ka dhaxeeyay bay sameyn asagoo kaas dhiig dhabar furanku mushkilo male laakiin labada soonka jabinaya waa midka dhalmada ku yimaada iyo midka ku yimaada caadada sida yani waxa weeye sida caadiga dumarka uga yimaado waa intaasi waxyaalaha soonka jabiya ee adillada la way waxyaalo waxa jira aan adilla cad aan lahayn khilaafna ka jiro culimada dhexdooda ma jabinayo mise ma jabinayo kuwaas hadda u gali maayo waxaan uga gudbayaa soonka waxa jira waxyaabo dhaawaca oo ajirkiisa dhaawaca walow laga yaabo inuusan soonkii ka jabin laakiin haddana ajirkiisii wuxuu goosanayaa kolba qadarka aad shayga la timaado ama khaladka aad gasho ba ajirkii go'aya waana dambi kasta ama afkaaga ha ka dhaco ama qalbigaaga ha ka dhaco ama adinkaaga ha ka dhaco ama indhahaaga ha ka dhaco dambi kastood intaad sooman tahay aad gasho ajirkaaga iyo abaalgudkaaga iyo thawaabkaaga ka go'an yahay waana mid nabigeenu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu alayhi xadiidka Abu Hurayra fi sahih al-Bukhari wa ghayrihi ويري من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه روحا كتجن هذا الكحن يفعل كحن شرع هذا خلاف سن إلهي وحدا أكمله وحنا كفل مايو إنه عنتدي سي عبيتان كيس إسكدايو إن هذا عنتي عبيتان إسكدايزو وحدنا إلهي كمله هذا أفحمد يدقن حمد إسكدين حديث كلا وكان النبي صلى الله عليه وسلم ليس الصيام عن الأكل والشرب عندي عبيد اللي اسكدا يصونكم معه إنما الصيام عن اللغو والرفث صون وحل إلى هذا إن أفحمد يدقن حمد إسكديسو وتكتكت وتسك إلى لسو فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم هذو الروح كل عيتمه أما الروح وخلط كقولك يا وحن هبونين هلا فعل تمن واحد ترى هذا وروان صومناه إلى شو صون كاجا سيد الله عكتي حولها أو إلى لسان وتشبك يا ميلها لسه أو إلى لسان وخطرت أو إلى لسان بوصونك إلى لنباهي صون صح مركب واحد هذا صون الروح وذا صومي قلبي كيسا صومن عرب كيسا صومن إنديه كيسا صومن دقيه كيسا صومن حبين كيسا ترن كصومن السجود نوع وذا صومي لكن الروح إسكفريئة وضدك حمن وعيتمي aflagaadayn dadka isku diri oo aan controlnayn oo waxba yaraatay uu deynaya uusan jirinba kaliya intii xalaasha ahayd iska daay intii xalay xalaasha u ahayd oo cunidii cabitaankiya galmada ahayd intii iska daay laakiin intii xalay xaraan ahayd maantana xaraanta waa qasanaya marka waxa la rabaa inaan soonka macnaha u fahno haddii aad iska dan weydo xaraantii waxyaalaha dambiga ka fogaan weydo waxa imaanaya أجركاجي أجر لأن بعد كسر عيسى وحنا نقول إذا قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم ضد صومن أو صوم كذا أن كهلين وحن أون يجاتك أهين وتعب خسار وين روح سوى روح تعب خساري
waxaad noqonaysaa dadka nebigu sheegay sal alla alay wasalam in ay muxunaha ilaahay u tegayaan ayagoo moodaya in ay wax u yaalaan markay alla agtiisa tagaanna wax la'aan khasnada wax ku jira maba lahaba ibr laana wax way soonkiisiyo dhan wuxuu ku baabiyay macaasi iyo dunuub ku baabiyay waxa la rabaa marka inay bisha soon inooga gasdisan tahay bilaha kale khaasatan dumarka xanta iyo يعني wax ka sheega iyo dadka duridiisa iyo afxumada iyo aflagaadada iyo waxana aad ugu baanti waa ka nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam takthurna al-la'na wa takfurna al-ashir soonka hadii aan la ilaalin marka waxyaabaha laga ilaalinin ajir la'aan baa lagu dhacayaa kolba qiyaasta dambigaagu dhan yahayna in la eg baa ajirkaaga dhamaanayso go'aysa ayadana waa in la iska ilaaliyo waxaan inta uga gudbayaa inaan tilmaamo ayadana dad ilaahay tabaaraka wa tacaala uu rukhsasiyo asxaab rukhas leeyahay oo iyadana ahkaamteeda inaan ogaano u baahan asxaab rukhas waxa weeye waa dad loo ogolaaday inay iska afuraan dadkaasi waa dad ila shariicadeena waa fudayd shariicada ilaahay tabaaraka wa tacaala yusri iyo fudayd bay ku dhisan tahay ayadoo ahkaamteeda oo dhan iska fududahay bini aadamka ayna ku adkayn ya hadana ruuxu markuu xoogaa si yara adkaato ay ku adkaato waa laga sii dabcinaya xaalad gooniya ku timid xanuun baa ku yimid da'ba ku timid waa laga sii dabcinaya iyadoo markii horeba dabacsanaydba iyadoo markii horeba fududaydba hadana la sii fududaynaya ilaahay tabaaraka wa tacaala naxariistiisa kamid marka waxa kamid ah dadka loo fududeeyay ruuxa xanuunsanaya kamid faman kana minkum mariidan aw ala safarin فعدة من أيام أخرى روحي جيران هيسك أفرو كدبنا دبها كقلي والروحة انتو حنون صنيه هاي حنون كيس الرجال لغا قوا إنو كعافي ماذي دونو مركو عافي ماذو هقلي لكن هذا يوصن سلبنا هيسك أفرو حنون سن لسومي كرينين هدو قبو وهيسك أفرية صنكو أما وحو دبري دهيا بوكسودكي وحنونك كبوكسون له اما وسي عسلينيا اما نفتي بابا حميلي لا واسكا افوريا ديبو كقلينيا haduu xanuunkiisu yahay xanuun aan rajo lahayn xanuuna waxa jira bini aadamka dhaqaatiirta iyo dadka aqoonta leh marka la tashado bini aadamku uu yaqaano ayna rajo lahayn inuu ka sii daramoyo ka soo reyn aan lahayn xanuunada noocaas haduu qabo la soomi kari waayana marka uu iska afuraya قلنا لجمر رب الراشين بالله جربا فيديو بحنايا مالكي بوحوجا بحنايا حلا جربا أنت مع الموضة بيشو أي نقط مساكين تراد عليك إنه قوديو ميدول بحال مروح كفلا إنه سي قدر كل السينة يا واحد نصكم مسوا أرورن لكن علماء وكل أركدوين قاركود واحد كيلا قدر كيسو هاي بالشيء يعني قار واحد شيء يعني واحد نص كيلا قدر كيسو هاي هذيك واحد مسكين حال مروح كفلا ayaad tirada bishu ay noqoto 29 ama 30 miskiin haday 30 noqoto 29 haday 29 noqoto waxa kada cuntada ama iyadoo bisilsi oo u kari ama iyadoo caydina u qaybi hal mar wada siiyo isugu wada yeero u qaybi waad heli kartaa waxa kale oo heli kartaa inaad maalin walba qayb mid siiso maalin walba waxoogaa siiso maalin walba koox siiso waad heli kartaa iyada kulli dalika khiyaarkaas waa ku furay marka ruuxa xanuunsanaya waa ruuxaas ruuxa labaad ee ruqsada la siiyo waa musaafirka ruuxa socotada oo iska afuri kara isaga waxa quraanku sheegay ayadana dib uu ka qalaynaya haduu soonku dhibayo oo safarka uu yahay soonku uu dhibayo waxa u fiican inuu afuro bal haduu ku rafaadayo inuu ruqsada rabbi qaato bay culimada qaar kood arkayaan inay laazim tahay oo cisyaan buu noqonaya khalad buu noqonaya inuu soomo hadduu laakiin uusan wax dhibo weyn ka dareemaynin isagoo socota uu soomi karaa hadduu soonka dartii u afuray waxaan u jeed safarta darteed waxa laga rabaa inuu dib ka qaleeyo isagana ruqsada waa la siiyay waxa kale ruqsada la siiyay oo afuri karaya muxuu ahaayay haweenayda uur kale iyo midda nuujinaysa haddii uurkii iyo soonkii ay isku wadi weyday ku adkaato way iska afuri كذلك نوجنت إلمها نوجنيس النفق وباهي الناس كعانها كإيمانية وحويدو عنيس عبيسو كإيمانية علمه بالرفاضة يدينا ناس كذي ومرانو للنوجا ويكون رفاضة يسا رخصته مركز الشرع وحيس هاي سكافرت حديث كي أنس بن مالك الكعبي في سنة أبي داود وغيره النبي صلى الله عليه وسلم يقول رخصين أفوري كران ها أفوران مركز أفوران كدي محل جربا ويكبحان أما أوركي إذا شو يجاني سيشو
ama ay nuujintii ka baxdo ilmihii koro oo ay markaasi soomi karto maxaa laga rabaa sida culimada badankoodu qabaan waxaa laga rabaa inay qallayso intii ka tagtay inay dib u soo qallayso baa laga rabaa bishoo dhan haday tahay ama bisha qaar kamid haday tahay culimada qaarkood waxay leeyihiin raashin bay ku daraysaa ma xoog badna ra'yigaasi inay raashin ku darayso waa ra'yi tabar daran ee waxaa laga rabaa qallihii oo kaliya aaraa kala jirto xilligii saxaabada ilaa hadda masalada la isugu khilaafsan yahay laakiin qallaha inay ku gaabsato ixtiyaadka iyo dadaalku ku jira oo in macnaha wax way maalmihii ka tagay soo qallayso labaduba haweenta uur kale iyo mid nuujinaysa labaduba waxa kale to iyagana ruqsad la siiyo iska afuri kara dadka da'da ee duqoobay ee darteed la soomila ayaga laftooda laba nooc dad waa dad intay duqoobeen maskaxdoodiiba tagto cantatabay waa islaan duqa maba garanayso waxba kala garanayso waa oday duqoobay waxba ma kala garanayo dadku hadday heerka gaadhaan oo maskaxdu tagto waxba laguma leh raashiinna lagama rabo muxuu ahaayey qallana lagama rabo wax lagu leeyahay maba jiraba waa dadka waalan oo kale waa carruurta yaryarkeen caqliyaysanin oo kaleeto ama aan qaan gaadhin dadkaa waxba laguma lahaba laakiin hadduu da'yahay ruuxu maskaxdiisii joogto laakiin tabardarro uusan la soomi karaynin waa afuraya hadduu afuro waxaa laga rabaa sida culimadu badin fidya laga rabaa markaa raashin buu bixinaya raashinkan soo sheegnay ee nin ruux xanuunsan ee aan rajada lahayn xanuunkiisu inuu ka bogsoodo raashinkii aan nidhi wuu bixinaya kaasuu bixinaya يعني waxa inta tirada ay bishu noqoto maalmaheedu intay noqdaan inta in leego masaakiin wax siinaya hal mar hawada siiyo haw kariyo qaydin ha ku siiyo hawl isaga u taalo waay khiyaar bulay Anas ibn Malik radiyallahu anhu kama fi sahih al-Bukhari yani ta'liqan Anas ibn Malik markuu duqoobay saxaabigi nabiga khadimkiisa aha markuu duqoomay wuxuu sameyn jiray bisha intuu isu keeno 30 ruux ama bishu kolba intay noqoto yu hal mar raashin ka siin jiray marka way u banaan tahay dadkaasna dadka ruqsada la siibay kamid tahay labada qolayaguna kamid yihiin dadka duqoobay oo aqligoodu tagayna xukunkoodu wakuwaas dadka duqoobay aqligoodu joogana wakuwaas raashin bay iyaguna bixinayaan waxaan intaas ku darayaa oo iyadana aan raacin rabaa inay iyadana muhiim tahay ruuxa muslimka ah inuu ilaaliyo soonkiisa in uu suxuurto habeenka uu doonayo maalinkeeda inuu soomo maxaa yeelay nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi حديث عمرو بن عاص في صحيح مسلم أي النبي صلى الله عليه وسلم فرق نور دحية صونك النجا يا صونك أهل الكتابك وسحورة عنيد دواء مركا صونك إنات سحورته نبي يقول كنت المامي سحورته إنه بركتها هكذا جينا أبو النبي صلى الله عليه وسلم يعني بركتها هكذا جينا وحكى السجن إنه يري سحورته ضدك السحورنا يا رج يا دمر بقى dadka suxuuranaya Allah iyo malaa'iktiisa ayaa ku saliya Allah tabaaraka wa ta'ala waa amaana malaa'iktuna waa u ducaysaa marka wax la fududeysan kara ma aha hadii aad dhici karto inaad ka kaaftoonto adigu aadan yaani suxuur u baahnayn oo iska soomi karto suxuur la'aan ajir baa meesha kugu dhaafay weyn sunnadii nabiga kugu dhaafaysa salawaatu rabbi wa salaamu alayhi marka suxuurta in lagu dadaalo iyadana ahkaamta muhiimka la doonayo in la ogaado خاصة وحصلنا ذي النبي أهيد إن سحورته اللي دبلجو أو وابرك أكتي صل السحورته حنا حديث كقطوسي وحكي حديث صحيح البخاري غير كقصة من حديث أنس وحول زيد بن ثابت بنبي قال السحورتي بركز هو حويدي نبوري إمي سأود حيث السحورتي النبي جاء آذانك وآذانك الصلاة اللي قلت كني بركز هو حول قدر 50 آية كنتن آيات إن لا آخرين كرا بأود حيث نبي السحورتي صلى الله عليه وسلم إياه صلاة آذان كذا كنتم أيضا قياس تلا آخرين كراي و8 دقيقة دوري 8 دقيقة قياس تاسوه مركا إن لدب دقاي تأخير السحور سنة النبي جنوي صلوات ربي وسلام عليه إن سداس ليالو وحا إنت در روح يسوقون كنت لقلين السود دالي هدي لغو آدم يسوقون ويلك كعنتا كوهيا راشينكي عنايا كعنتا كل تشيرا أما ويلك عبيتانك كعنتا كوهيا هدي لغو آدمه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحوالك أدقعنتا كوهيا سمركا كتشيرا لما يسوق حديث سنة أبي داود غير كوكي الله كتصية النبي صلى الله عليه وسلم متكين هدو آذان كمقله سقوا ويلكي كعنتي سقوا كتشيرو
weelka yuusan dhigin ilaa uu xaajadiisa iyo dantiisa ka guto ibnu jariir at-tabarina wuxuu soo saaray cumar baa habeenada ka mid ah nabiga la suxuurtay sallallahu alayhi wasallam markaasuu cumar oo cabitaankii cabaya ayaa salaadii la aadaamay markaasuu rasuulka ma iska dhigaa rasuulka ilaahay ma dhigaa ma wuxuu nabiga sallallahu alayhi wasallam hadhigin dhamayso kala marka masalo muxuu ahaayay ruqsa away ruqsa shariicadu ina siisay way waxayna ka dhalanaysaa inuu ruuxu u qastin ma aha in lagu leeyahay xilliga raashin raadso oo dabka raadso oo soo rido oo ma aha laakiin midka aad marka gacanta ku hayso rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam dantaada ka gudo waxaan kaga baxayaa ahkaamtu way far badan tahay in la dedejiyo afurka ayadana sunnadii nabigeena way salawaatu rabbi wa salaamu alayhi oo xilliga qorraxdu dhacdaba markii la hubsado inay dhacdaba in hore laga afuro oo la dhihin habeenkii wali weey inaga habeenka inooba fududa markaan cawaasimta iyo magaalooyinka joogno inaan qorraxda dhicitaankeeda aragno laakiin waxa lagu afurayaa aadaanka laga hormari maayo aadaanka masaajidda markii la maqlo sida waa in loo afuro waliba in salaada laga hormariyo afurka in la hormariyo sunna oo nabigu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi iyo saxaabadiisu markay afuraan kadib ay salaada maghribka tukan jireen waxa lagu afuro waxa uu qiimo badan timirta sunnada nabiga salawaatu rabbi wa salaamu alayhi haddii aad timir weydo biyaha ayaa ku xiga sidaasay u kala fadli badan yihiin marka in afurkana la dedejiyo suxuurtana la dib dhigo lagu dadaalo ahkaamta mujmalkooda haddaan soo ururiyo inahaasi ayaan tilmaami karaa waqtigan saamaxayni tafaasiil inta ka far badan inaan sii bixino hada wabillahi tawfiiq sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam رمضان قد أهله بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل حين حافظين ذاكرين قانتين خاشعين ذاكرين قانتين خاشعين مسلمين مؤمنين للإله عابدين شهرنا صوم وعتق وقنوت فيه صدق يومنا صبر ورفق بدموع البائسين بدموع البائسين.